بسم الله الرحمن الرحيم دمان dadka jooga madashan isugu yimi anigoo aan kala ablaablaynayn qof walba magaca uu ku fadhiyo iyo taytalka uu ku fadhiyo u tixgelinaya kuna ixtiraamaya maadaama waqtigu yar yahay waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ilaahay baa mahad iskala dhammaanteed isu keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahadda ilaahay ka gadaal waxaan galabta u ballansanayn inaan isugu nimaadno oo shirkan ujeedkiisu ahayd in la iska xog waraysto lagagana wada hadlo meesha ay marayso iyo waxa ay u baahan tahay mashruucii wadada ceel daahir ceerigaabo waxaa ma qabo anuu sidii loo dalbay dadka degan reer Sanaag ee ku sugan Badhan galabta sidii loo dalbay ama laga eegayay inuu u baxo shirkan u yimaadaan ama uga soo qayb galaan ugama soo qayb galin umana joogaan igumana muuqdaan aniga waa qodob wadada markan ku noqdo dib ugu noqdo bilowgeedii awalan waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii xukuumaddii hore ee tagtay oo aan la xusin Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wadadan dhagax dhigay juhdi ku bixiyay shir kasta iyo mar kasta oo korumar ka hadlayana ay ahayd halku dhigiisa koobaad oo magacaabay guddidan khayrka qabta ee culimada ee waqtiga gelisay ee galabta u dambeysay inooga warbixisay oo inoo hor joogta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa in kastaan isleeyahay reer Sanaag uma abaal gudin oo xildhibaanadii metelayay waa iskala warqabnaa waan isleeyahay abaalkeedii kama helin oo Cabdiraxmaan ka fadhiyo galabta Sheekh Maxamuud haddii aan guddida mar labaad waxaan u mahad celinayaa guddida inoogu haysay wadada gacanta ee waqtiga dheer haysay ee gudoomiyuhu galabta ka fadhiyo ma aha horta gudoomiyuhu maalintii ugu horeysay oo Badhan fadhiyo wuxuu ka mid ahaa oo hogaaminayay wafdidii aan halka lacagta kaga wareejinay gudoomiyuhu wadada waana maray waana yimi mana aha maalintii ugu horeysay maalintii ugu horeysay hadalka loo dhigay inuu yahay laakiin wuu yimi una la socday hanti baanu kaga wareejinay guddidu isagoo hogaaminaya iyadoo dhan guddidu oo dhammaystiran waa uga mahad celinayaa guddida juhdiga iyo hawsha ay gacanta inooga haysay sidii ragbay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro shaqada ay inoo hayaan waa bini aadam ma dhaliil la'aan karaan wixii bashar gacanta ku hayaa dhaliil bay yeelanayaan laakiin galabta waxaan isleeyahay aniga iyo inta ila midka aba uma firra ama guddi inay gacanta ku fiiqdo oo dhaliisho guddida wuxuu yidhi ninkii gebiyey hadda xaaji aadan afqallo haddaad adigu tuur leedahay iyo tootir iyo qaalloos mid kaleeta inaad toosisawato aan dhicin xilliga aynu xisaabtami karro xilliga aynu cid dhaliili karro xilliga aynu cid farku fiiqi karraa waa marka aynu doorkeennii iyo humaaggii laynaga eegaya aynu buuxinno xilligaas aynu xisaabtami karraa ama cid farku fiiqi karraa waxaan ku tala bixinayaa waxaan haddii waddadu ay gashay xukuumaddan dambe dalka la wareegtay xilligii kaaya isugu dambeysay guddida uu hogaaminaya gudoomiyuhu waxay ahayd xilli kala guura oo doorashadii hadda xukuumaddan joogta ay ku soo baxday ay fooda inagu soo hayso intii ka dambeysay maalin la yiri wajiga labaad baa la dhagax dhigayaa mooyaane xukuumadda hoos waxa isugu qabtaan mooyee gudoomiye waa u afgaabnayd wadada waa tabeene taasi waxay keentay abaabulkii iyo xamaasadii iyo hawshii dadku doorka ku beegna xitaa ciddii waxaad haysaa in hoos u dhigto la yiraahdo warda ciddii lacagta maadaa qaadanaya meeshii hadalhaynimo kama jirtee marka waxaan ku tala bixinayaa oo gudoomiyaha ka codsanayaa maadaama waddadu wejigii labaad gashay waa ognahay inay ka culays badan tahay oo dhaqaale ka badan u baahan tahay waxaan soo jeedin lahaa anigu tala bixin koow guddidii waddada oo aad hogaaminaysid oo dhammaystiran oo xubnihii deegaanka ee annagana deegaankan reer Sanaag ka mid ah ay koow ka yihiin inay yimaadaan si waddadii abaabulkeeda iyo dabagalkeedii dhaqaale ee reer Sanaag ku aadanaa dhulka looga kiciyo waa soo jeedin lahaa anigu tala ahaan inaad ku timaadaan mar waftigaan noogu timaadaan oo aniga fariintay taasay ku aadan si abaabulkeedii loo ambaqaado waxaan leeyahay qabaa'ilka reer Sanaag 2 milyan baynu qaadanay oo layna saaray ma ahayn wixii inagaga beegnaa waddada ceel daahir ka soo degtay oo ceerigaaba ku socota ma ahayn wax u eg laakiin markii la arkay dhaga adaygeena iyo xuquuq la'aanteena baa la warba 2 milyan kaana hadda qiimihii markaan tixraaca uu ka warbixiyay sheekhu ama gudoomiyuhu waa 3 milyan 225 kun bal rarku hay dambeeyay iibka ay ku imanaysaa dekada Boosaas waa ku filanahay wax yar baynu ku bixin karraa waa ku filanahay 35 hadhay la galgasha waa oran karraa dawladda iyo guddida dhaqaalihii aynu qaadanay ee aan ahayn kii inagu beegnaa ee aan ahayn kii aynu mugeennahay laynaga sugayo aynu u ekayn
aan dib ugu noqonno aan u diyaar garowno kulankaa dambe aynu ka codsanay guddida la isugu imanayo cid waliba inay jawaab ka bixiso waxa ay ka hayso iyo meeshay kaga sugantay taas waa qodob waa qodobka labaad qodobka iyo saddexaad waxa weeye waxaan ka mid ahay beelaan halka laga carabaabay ee looga mahad celinaya la leeyahay waxbay bixiyeen ma qabo inaanu bixinay ama buuxinay kaalintii nagaga baagnayd mashruuca intaa la eg ee dalka maraya wadada maray ka degaan ahaan iyo kama wada waxaanu ballan qaadnay maalinta lacag 400 oo kuna inaanu bixinno oo annagu aanu isxilqaan iyo garashadeeda ku qaadnay lacag baa nagaga dhinayd lacagta iyadoo abaabulkeedii noo socdo waxa gaabna geliyay aamuskii xukuumadda hadda timi iyo deemeesh joogtay aamuskii baa ragii gaab naga geliyay waxa la xajeclo laakiin haddii uu bilowday waxaan aad ugu mahad celinayaa barnaamijka qof iyo foosto ragga bilaabay oo runtii ahayd inaan hore kaga daro oo xusuusiyey wadada dadka runtii aad u xusuusiyey qof waliba isyiritolo xaggaad kaga sugan tahay maxaad ka geli kartaa sida la sheegay waa mawduuc aad u muhiima oo wadada muhiima oo horumarka muhiima ciddii barnaamijka soo jeedisana mar labaad iyo mar saddexaad waa u ducaynayna ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro iyo ka caajisin hana laga wada qayb qaato laakiin lacagtii laynaga sugayay waxaan la qabaa raggii hore sidii laynooga sugayay baa laynooga sugayaa cid waliba iyada iyo ka badanba inaynu u keenno oo doorka aynu wadada ku leenahay aynu uga qaadanno iyada taasi waa taa lacagtii annaga nagu dhinayd abaabulkeedii gacantaanu ku haynaa ololaheedii iyo gurusteedina waa socotaa kabeel ahaan insha allahu si dhaqsaa inay nooga soo xirooto oo aanu ugu dhawaaqno wareejinteedana waa rajaynaynaa waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii faahfaahina nagala soo xiriir ciwaanada hoos ku qoran